asxaabteedaanu jecel lahow guud ahaantiin markii hore waad salaamantii iyadoo maanta aynu warbixinteena aynu ku jilaaci doono isla markaasina aynu ku soo qaadan doono wadadan degmada 31 May xaafadda Ishaboorame bilixdeeda wacan iyo kaalinta wax ku oolka ah ee wadadan xaafadda Ishaboorame ka qaadato isku socodka gaadiidka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaynu warbixinteena aynu ku soo qaadan doonaa halkana waxa uga diyaar ah aniga oo Ciidruus Ruraaye haddaba aynu ku bilownay warbixinteena wadada degmada 31 May oo loo yaqaano xaafadda Ishaboorame ayaa waxay tahay wada bilixdeedu ay wacan tahay isla markaasna kaalin firfircoon ka qaadata isku socodka gaadiidka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waana wadadaasi bilixdeedu ay wacan tahay wadadani waxa ay ku taallaa xaafadda Ishaboorame agagaarka kaalinta Xasana Basi waana wadadaasi bilixdasan wadadani kale ayaa waxay tahay wado aad u bilixsan waxaana lagu magacaabaa wadada cad waxaana ku taallaa xaafaddaasi Ishaboorame haddaba wadadaasi cad ayaa waxay tahay wado qurxoon oo run ahaantii bilixdeedu wacan tahay waxaana loogu magac daray heerkii ay ka soo gudubtay oo ah mid carratuula iyadoo oo magaceega la yiraahdo wadada cad haddaba wadadani ayaa waxay ka soo gudubtay marxalado kala duwan iyadoo markaas mar ahayd wado carratuul ah balse waqtigan waxay tahay wado qurux imika wadadani waa mid dhameystiran waana wadada bilixdasan waana wadada ugu mashquulka badan xaafadda Ishaboorame waayo gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo bulshada ayaa iskaga kala gooshaya waayo waxa iskaga kala gooshaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan baa isticmaalaya run ahaantii wadadan haddii aad eegto kuma arkaysid ciidankii nabadgelyada wadooyinka oo markaasi dhex taagan gaadiidka kala hagaya balse wadooyinka kale caasimadda ayaa ciidanku ka howlgala oo ka saxmad badan wadadan xaafadda Ishaboorame oo run ahaantii wadadan xaafadda Ishaboorame waa wado xaafadeed oo ka saxmad yar wadooyinka kale ee magaalada Hargeysa taasina waa keentay in ciidanku markaas ay ka howlgalaan wadooyinka waaweyn ee caasimadda oo saxmad xoogani ka jirto gaar ahaanba ha ugu badnaadaan xilliyada ay ardaydu markaas dugsiyada ka soo baxaan haddaba wadadan Ishaboorame ayaa waxay tahay wado ahmiyad gaar ah u leh dadweynaha ku dhaqan xaafaddaasi Ishaboorame waana wado san hore soo xusay bilixdeedu ay aad u wacan tahay xaafaddaasi Ishaboorame ayaa waxa ku taala buurtan bilixda san leh run ahaantii buurtan waxa lagu magacaabaa buurtaynan xar waa buurta bilixda san leh waana buur jawga ka dhacaya kaalay arag hawada ka dhacaysa wax kala weeyay iyadoo xaafaddaasi Ishaboorame ay dhinaca naacawda ka fiican tahay xaafadda laanta hawada run ahaantii xaafaddan Ishaboorame ka wacan dhinaca cimilada oo kaalay arag hawada ka dhacaysa waayo buurtana u soo jiidaysa halka xaafaddaasi masalaha laftigiisu dhinaca naacawda ka dhacda hawada ka dhacaysa ay fresh tahay oo ay tahay markaas mid aad iyo aad u wacan haddaba halkani waa dalcadda wadada xaafadda Ishaboorame halkan dalcadda mararka qaarkood waxa dhacda in gaadiidka waaweyni ama gaadiidka ciladaysan inuu soo fanan kari waayo oo mararka qaarkood uu dalcadda dib uga taraaro tusaale ahaan imika baskani wuxuu ka talaabi kari waayay wadadan dalcadda waa halkan dalcadda hoosteeda darawalkan xariifka ay ku baarkin gareeyay dadkii saarnaana waxa uu ku wareejiyay gaari kale oo isla noociisu bas kala ah
gebagabadii wadadan xaafadda isha boorama ayaa waxay tahay mid markaasi shilalkooda muddooyinkii u dambeeyey uu soo badanayay iyadoo oo markaasi dhibaatada wadadaasi ay dareemayaan dadweynaha ku dhaqan xaafadda isha boorama warbixintan kooban waxay soo qaabay halkan ka soo jeedinay aniga waa Idris Rooraaye akhayran inta warbixinta warbixin lamid ah ku kulmi doono saas isma dhaafno billahi tawfiiq